wadiiqada keliya dhulka mayland lagu soo celin karo casrigan hadda jira waxaa weeye in ciidamo daraawiisha loo dhiso degmo kasta ee ka tirsan dhulkan lagu soo dego waa degmada afgooye waa degmada marka waa degmada qoryooley waa degmada baraawe waa degmada sablaale waa degmada kukuwaarey iyo walaweyn baardheer dadkuu dhashayba ah buuraha wadadkuu dhashayba ah ceelwar bismillaahi wakafaa su'aasha ay weydiisay wariye waa su'aal macno badan samaynaysa jawaabteedana waxay u baahnaanaysaa sharaxaad aad u badan sidee baa lagu soo celin karaa dhulka maqan ee dhammaan ma arkaysee koonfurta ama mayland haddaa ay weydiisay runtii ma sahlana wayna sahlan tahay haddii la maro waddadii loogu tala galay ee macnihii dhulkaasi lagu soo celin lahaa oo dadku ay wada fahmaan oo dabadhoonnimada ay ka baxaan wariye dhulka mayland waxaa lagu soo celin karaa sida ugu dhaqsiyaha badan wadiiqadee baa loo maraa maanta waxaa bilaaban waxa la yidhahdo federaalkii 1943 iyo 7 dadkan koonfurta ka soo jeeda macnihii ay u ordaayeen oo loo dilay halyeeyadooda ee gobolka shabeellaha hoose ka soo jeeda u badan sida ustaad cusmaan oo kale haddaba waddada ay martay walaweyn ayaa lagu soo celin karaa lambar 1 dhulka oo dhan iyo weliba gaar ahaan shabeellada hoose haddii sida puntland oo kale haddii sida galmudug oo kale haddii dhammaan maamullada jira ee soomaaliya qaabka federaalisamka ay u qaateen ummaddan gobolladooda lagu soo duulay ay ku daysadaan waxaa weeye nin ka yimaaday gobollo kale ama qof ka yimaaday meel kale wax fursada ugama furnaanayo waxaan arkaynaa hadda magaalada kismaayo oo kale macnihii axmed madoobe oo ka yimaaday etoobiya ayaa ma arkaysa ku habsaday oo deggan waxaannu maqlaynaa maalin kasta iyo habeen kastana dad baa la soo daabulayaa dadkaasoo la rabo in lagu beero macnihii jubbada hoose si ay ma arkaysa dadkii deegaanka lahaa looga barabixiyo waxaannu arkaynaa ma arkaysa shabeellada hoose oo 30kii sane ee u dambeeyey la iska dhex degganaa oo dhibaato ay ka taagnayd oo ma arkaysa beeraha iyo guryaha iyo kufsiga xataa dad nool lambar 50 lagu gubay aan ognahay 6 ma arkaysa qofood hooyo iyo caruurteeda oo xasan jaamici iyo dadkaasi ay gubeen aan ognahay maxkamad la soo taagay aan la sheegin bal meeshii macnihii maxkamad laga soo taagi lahaa darajooyin loo dhiibay dadkay ku soo duuleen ay dhibaataynayeen ay gubeen dib haddana u xukuma loo yidhi annagoo u jeedna warka anoonan ku dheeraanin wadiiqada keliya dhulka mayland lagu soo celin karo casrigan hadda jira waxaa weeye in ciidamo daraawiisha loo dhiso degmo kasta ee ka tirsan dhulkan lagu soo duulay marka daraawiishta la dhisaayana macnihii loo dhiso sida hadda degmada walaweyn oo kale loo dhisay oo kale daraawiishta yaa loo dhisayaa yaa lagu darayaa yaan ka mid noqonaynin in la kala shaandheeyo tusaale ahaan gobolka shabeellaha hoose macnihii 8 degmo ayuu ka kooban yahay waa degmada afgooye waa degmada marka waa degmada qoryooley waa degmada baraawe waa degmada sablaale waa degmada kutuwaarey iyo walaweyn 8daasi degmo tusaalaan u soo qaadanaya hadda walaweynaa bilowday waxaa la samayn karaa dadka deegaanka u dhashay degmada u dhashay oo iska leh la yaqaano dhallinyarada ragga iyo dumarka leh hooyooyinkooda iyo aabbooyinkooda la yaqaano ayaa daraawiishta loo qoraya ninka koytada ah oo deegaanka aan u dhalan ama ku soo duulay ama af Soomaali raba inuu ku joogo waa laga ilaalinayaa in ciidanka lagu daro marka waxaa soo baxaya macnihii daraawiishtaasi waxay shaandhaynaysaa waa shaandho waxay shaandhaynaysaa marka ciidanka sidaasi loo qoro yaa degmadan u dhashay iyo yaanan u dhalan ciidamadan federaalka nafsadooda oo macnihii lagu dhibaataynayo dadka deegaanka xalkooda iyada nafsadeeda waxaa daraawiishta laga helaya ilaan ciidanka federaalka waxaa ku soo hoos dhuumanaya niman macnihii mooryaan ah oo danley ah oo doonaya dhulka iyo dadka iyo diintaba inay dhibaateeyaan see looga adkaan karaa iyaguna
kan soo duulay ee ma arkayse ciidanka aan ahayna sidee looga adkaan karaa mooryaanka ah oo dhulka sheeganaya daraawiishta marka laga soo qoro dadka dhulka u dhashay oo la yaqaan oo askar ka noqdaan waxay haystaan markaasi legacy way sharciyeysan yihiin ciidan sharciyeysan marka uu degmadaasi sida afgooye ama marka ama walaweyn ay leedahay tusaale ciidankaasi isaga ah iyagaa taliyaal macnii laga soo dhex saaraya iyagaa iswadaya cashuurtii laga qaada degmadooda ayaa lagu maalgelinayaa degmadu way iswadaysaa amni iyo dhaqaale iyo maamul iyo siyaasadba marka heerkaasi ay taagan tahay marka kii kor ka yimaaday oo isbaarada rabay inuu dhigto ciidankan ayaa dilaya oo la dagaalamaya waa qodob jaanis uma furna qodobka labaad haddii qabiil uu isku dayo inuu isu soo abaabulo oo macnihii ciidankaasi daraawiishta lagu soo duulo siday samayn jireen qolyaha salballaarta haddee ciidankan maahan ciidan ma arkayse shacab ah oo qabiila ma ahan waa ciidan dawladeed markaasi oo daraawiish ah oo sharci ku jooga haddii degmadan marka lagu soo xadgudbo tusaale ahaan walaweyn waxaa isla markii laga rabaa inay soo gurmado afgooye oo 60 kilomitir u jirta marka inay soo gurmado daraawiishta marka inay u soo gurmado daraawiishta baraaw inay soo gurmado daraawiishta ma arkaysa kutuwaare inay soo gurmado daraawiishta sablaale inay soo gurmado daraawiishta qoryoole inay soo gurmado waliba daraawiishta mararka qaar ay la isdhaafiyo ay kala roondeeyaan mararka qaar ay yimaadaan walaweyn ay tagto marka afgooye ay soo baxdo baraaw ay tagto baraaw afgooye ay tagto sidaas ay u shaqeeyaan haddii marka 8 degmo walboo la taabto daraawiishta macnihii dhammaantood macnihii ay u soo gurmadaan oo macnihii gobolkii 8 degmo wax ka tan badan ay yimaadaan haddana markaas kadib gobolka la deriska gobolkaasi sida buuraha kaba oo kale degmooyinka u dhow ayaa haddana ma arkaysa gurmad looga fadhiya haddii gobolka baay oo dhan iyo shabeellada hoose degmooyinkooda daraawiishtooda isu gurmadeen ay wax qaban waayaan ay fujin waayaan degmadii lagu soo duulay haddana gobolka saddexaad bakool baa soo gurmanaysa marka ugu dambaysana waxay tegaysaa maamulka markaasi meesha ka jira in uu dhawaaqo nafsadiisii macnihii ciidamada kaydka uu soo diro horta dhulka sidaasaa loo fujin karaa nimanka ciidamada ah ee federaalka iyaguna tuutaha dawladda dadka ku dilaya waxaa looga adkaan karaa oo magaalada intay soo galaan isbaaro iska dhiganayo si dadban macnihii duduntaas intay ka soo baxaan iyagoo dawladnimo sheeganaya dadka shacabka hubaysan raba inay hubka ka dhigaan oo macnihii kani waa argagixiso ku shaabadaynaya iska xiranaya oo gadgadanaya sidii neef shilis oo kale oo kay rabaan dilayaan waxaa looga baxsan karaa daraawiishta maxaa yeelay ciidamada iyagana waxaa la dhahayaa idinku federaal ma tiinaha federaalka bara cayiman ayuu ku leeyahay gobolka ama degmo kasta soomaan xeryiin ha soo dhaafina milatari baa tihiin milatarigana dalkuu ilaaliyaa sharaf baad nagu leedihiin adinku xeradiini ma soo dhaafi kartaan garaamka meeshaasaa ka cuntaan daraawiishta ayaa maamulka iyo ma arkaysa macnihii iyo balayska ayaa ku shaqa leh wixii ma arkaysa gudaha degmadaas iyo nawaaxigeeda federaalow marka la idiin baahdo 8 degmo hadday wax qaban weydo oo macnihii maamulka guud markaasi meesha ka jiro uu wax qaban waayo degmooyinkoo dhan markay isu tagaan iyo maamulkooda wax qaban waayo federaal markaasaa gurmad annaga macnihii maamulkeenna gurmad idinsoo weydiisanaya idinkoo macnihii gurmad la idin weydiistay oo warqad macnihii madaxweynihiinii iyo taliyihiinii ciidanka iyo lugta iyo ay macnihii wataan ayayna garab istaagayaan meeshii hawsha annagu aan doonayno badeelka inay noo geliyaan ayay macnihii noo qabanayaan shaqada macnihii degmooyinka sidaasay ku soo noqon karaan geesta kale waxaa la sheegaa in gobolka gedo uu maqan yahay gobolka jubbada hoose inuu maqan yahay gobolka jubbada dhexe inuu maqan yahay shabeellada hoose waaba sheegnay sidee loo soo celin karaa keliya 3 gobol oo hadda ma arkayse sida baay iyo bakool iyo shabeellada hoose oo macnihii la isku gooyey oo 6dii la kala gooyey keliya nidaamka daraawiishta laguma soo celin karo xitaa waxaa lagu soo celin karaa fiiri goboladan gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose ee Maryland waxaa lagu soo celin karaa marka daraawiish la dhiso sidee loogu soo celin karaa iyaduna dad ka yimaaday jigjiga iyo dad ka yimaaday meelo kale ayaa laga yaabaa inay sheeganayaan hadda oo xildhibaannimo ay ku soo gelayaan intay baasaboorra Yurub iyo Ameerika ay ka soo qaateen ay dhahayaan Kismaayaan ka soo jeednaa jubbada hoosaan ka soo jeednaa ha yaacdo waa hadda soo ma jeedid marka waxaa macnihii waxaasoo dhan waxaa lagu kala shaandhayn karaa tusaale degmada jamaame dadka iska degan dadka iskale ee degan waa la garanayaa way ku nool yihiin
jamaama oo kale daraawiish marka laga dhiso dadka degan ee iskale la yaqaana marka wiilashooda daraawiish laga dhigo degmadaas iyagaa maamulanaya degmada ku dhagan bu'aale haddii ma arkayse macnihii laga dhigo dadka deegaanka u dhashay daraawiish haddii laga dhigo nin aan u dhalanin ama nin koytaa aan laga dhigin askari siyaasaddana aan lagu soo darin golaha deegaanka okay haddana ma arkayse degmooyinka ku dheggan oo dhan jubbada hoose iyo gado sida haddii laga dhigo sida baar dheero oo kale hadda waxaa soo baxaya macnihii bur iyo biyaa loo kala baxaya dadkii dhulka iska lahaa marka tirakoobka loo diidanaa dadkii dhulka iska lahaa oo macnihii lala sheeganayay iyo kuwii tuugada ahaa way kala miirmayaan marka runtaa imaanaysa maxaa yeelay ciidan marka la qoraayo dadka deegaanka haddii laga qoro hadda nin bannaan ka yimaaday ama ma arkayse macnihii dool ah jaanis uguma furnaanayo marka hadhowdii waaba lagu kala baxaya dhulkii marka wuxuu soo noqonayaa jamaame bu'aale saakow baardheere buulo xaawo ma arkayse degmo kasta waxay tahay baa soo baxaya maxaa la yidhi ninkii geeriyooday haddii la qariyo tusaale ahaan macnihii dadka hadda ciidamada markay dagaalamayaan meeshii 100 ka dhimata waxay sheegaan 20 ama 3 naga dhimatay dhahan laakiin qofka markuu geeriyoodo haddii la qariyo askariga macnihii reerkiisaa tabaaya waxaan ula jeedaa macnihii dadka korsaarka ah haddii degmo kasta dadkeedii ciidanka daraawiishta loo qoro ay isdifaacaan ama dawlad dhexe ha jirto ama aysan jirin ciidankaasi deegaanka u haraya hadhowdii qofkii doolka ahaa marka automatically ayuu meesha uga baxaya marka wariye su'aasha aad weydiisay sidee baa loo soo celin karaa waqtiga kan hadda la joogo oo macnihii nidaamka jabhadka ah haddii aad qaadatid isla markii lagu dhahayo argaxisaa tahay ama ma arkayse qaran dumis baa tahay lagu dhahayo haddaa i weydiisay waxaa keliya waqtiga hadda jira gamekan socda dhulkan si fudud loogu soo celin karaa in daraawiish laga qoro degmo kasta iyo tuulo kasta marka la qoraayana aad looga fiirsado dadka degmadaasi ama tuuladaasi xitaa makacdada in laga qoro oo makacdadaasi laga soo qoraayo in ay yihiin hebel hebel ina hebel heblaaye heblaaye ina heblaayo la yaqaano sida walaweyn loo qoray hadda oo kale in la sameeyo hadhowdii marka nimankan macnihii korfuulka ee ordaaya oo macnihii hayacdada ah soomaaliya soomaali baa leh lama kala lahan ku socda waxaa adiga intee degtaa ayaa soo baxaysa marka adigu dhulka intee naga soo gashay afgooya way taagan tahay daraawiishteeda dadkii u dhashay baa ah marka dadkii u dhashay baa ah baraawo dadkii u dhashay baa ah sablaale dadkii u dhashay baa ah kutuwaaray dadkii u dhashay baa ah walaweyn dadkii u dhashay baa ah qoryooley dadkii u dhashay baa ah buur hakaba dadkii u dhashay baa ah buur haybe dadkii u dhashay baa ah buur handooliyo dadkii u dhashay baa ah baydhabo dadkii u dhashay baa ah ufurow dadkii u dhashay baa ah qasax dheere dadkii u dhashay baa ah ma arkayse diisoor dadkii u dhashay baa ah waaji dadkii u dhashay baa ah rob dhure dadkii u dhashay baa ah ceel berde dadkii u dhashay baa ah tiyeeglow dadkii u dhashay baa ah sidoo kale ma arkayse xudur dadkii u dhashay baa ah baardheere dadkii u dhashay baa ah buulaxaawo dadkii u dhashay baa ah ceelwaaq dadkii u dhashay baa ah garbaharey dadkii u dhashay baa ah luuq dadkii u dhashay baa ah doolow dadkii u dhashay baa ah amuume dadkii u dhashay baa ah sablaale dadkii u dhashay waxaan dhihi lahaa kismaayo dadkii u dhashay baa ah jamaame dadkii u dhashay baa ah bu'aale dadkii u dhashay baa ah saakow dadkii u dhashay baa ah haddaba hadhowdii marka keliya waxaa la samaynayaa sidaa marka degmo kasta dadkeeda daraawiishta loogu qoro coordination waa la isku xirayaa keliya federaalkana wuu qabaa legacy waaye waa ciidan fawdaaman waa ciidan sharciyaysan oo deegaameed ah federaalka siduu ahaa ah kooytana meesha ay kaga bixi karto hadhowdii marka waxaa loo samaynayaa coordination communication isku xir keliya haddii hal degmo oo ka mid ah musiibo ay soo wajahdo oo lagu soo duulo oo macnihii dhulka laga qabsan maago tusaale ahaan marka oo kale marka ayaa laga soo galay dhankaas iyo buufow bacaadka waxaa la rabaa in macnihii nimankii 30 sano wax dilayay oo dhacay inay qabsadaan marka macnihii sidaa duulaan loogu soo qaado afgooye daraawiishteeda lala hadlaaya taliyaasha isla hadlaaya sidoo kale ma arkayse 8 degmo oo dhan intaan la gaarin gobollada kale ayaa istaanbay la gelinaya baraawo ayaa istaanbay la gelinaya daraawiishteeda kutuwaarey ayaa daraawiishteeda istaanbay la gelinaya
sidoo kale sablaale ayaa daraawiishtada istaanbay la gelinaya qoryooley ayaa daraawiishtada awdheegle ayaa daraawiishtada istaanbay la gelinaya walaweyn ayaa daraawiishtada istaanbay la gelinaya marka duulaanka lagu soo qaado isla markii xabaddu keligeed ma ridaysee waxaa wada ridaaya toddobada degmo oo kale oo macnihii 8 ay ugu tahay tan lagu soo duulay iyadoo istaanbayna ay sii noqonayaan gobollada kale degmooyinkooda daraawiishta marka axmed madoobe haddii meesha uu joogo hadhowdii xataa waxaa fududaanaysa gedo waxay dhihi kartaa degmo kasta annaga waxaan ku biiraynaa ma arkayse maamulka hadda baraawo fadhiya waxay dhihi kartaa ma arkayse gobolka jubbada hoose bo'aale waxay dhihi kartaa iyo saakow waxay dhihi karaan daraawiishtooda markay u dhisan tahay oo dadka deegaanka annagu waxaanu la dhacsannahay maadaama dastuurka federaalka uu qabo 2 gobol iyo wixii ka badan inay isku biiraan annagu waxaa weeye maamulka ma arkayse baraawe caasimadiisu ay tahay baan ku biirnay garbaharey iyo baardheere waxay dhihi karaan iyo buulaxaawo annaga waxaan ku biirnay haddaba axmed madoobe oo kismaayo ku owdan oo dadkiisii uu ka soo daadgureeyey jigjiga iyo dhagaxbuur iyo dhulkaasi hal gobol waxaa la leeyahay adigu ma arkayse maamul goboleed ma ku noqon kartaa hal gobol haddii maamul goboleed lagu noqonayo banaadir baa maamul goboleed noqon lahaa dastuurkana ma ogola galmudug baa hadda sharci darro ku dhisan oo waxaa weeye gobol iyo bar bu weeye gobol iyo bar maamul goboleed ma noqon karo dastuurka federaalka soomaaliyeed sida uu qorayo oo macnihii hadda macnihii gacanta ay ku hayaan xildhibaanada federaalka soomaaliyeed sidaasi daraaddeed axmed madoobe isaguna baalashaaba laga tifay markaasi dhulkii automatically 6 gobol oo macnihii loo rafaaday loo wareegayay jaasi fudud buu gacanta marka annagu waxaan ku boorinaynaa nimanka meesha la keensaday abdicasiis lafta gareen karasaay uu ugu horeeyo warniyow adinka ayaa ma arkayse tiimkiinaasi reedow ninkii dhulkan xorayn lahaa oo ummaddan ay dooratay madaxweyne mukhtaar roobow adinka ayaa ma arkayse daraaddiina loo xiray dad horumarkiinii aan rabin gobolladan in la haysto ayaa xiray oo isugu tegey wuxuu ku xiray ilaa hadda lama oga maxkamad lama haddii marka meesha aad fadhiisateen waxaa la idinkaga baahan yahay inaad talada dhegaysataan wixii la idiin sheegay inaad qaadataan annagu fikrad baan dhiibaynaa dhulkan in la soo celiyo haddii la doonaayo in la shaandheeyo haddii la doonaayo dadkan ma arkaysa macnihii ku qabso ku qadi maydide ku haaya haddii la doonaayo oo idin dhacayo oo idin gubaayo macnihii meel la wada leeyahay soomaaliya maanta ma jirto ha etoobiyaankii baa ma arkaysa tigre dowladnimo gooniyaan rabaale oromadii baa dowladnimo gooniyaan rabta sow ma jeedid wax la yidhaha soomaalinimo ma jirto waa been munaafiqiin waay soomaalida inta badan gobollada kale sida loo kala degan yahay waa la garanayaa nin marka ka yimaaday maantay ma arkaysa galmudug askari kama noqon karo daraawiishna kuma biiri karo isbaarana ma dhigan karo mana dhihi karo waxbaan ku leeyahay maamulka iyo golaha deegaanka puntland la mid marka waxaan ula jeedaa nin walba iyo dhulkiisi haddii dawlad ay sii jirtana sidaasaa lagu badbaadi karaa talada qaata haddii dawlad aysan sii jirinna dalkan difaacuu rabaa sidaasaa lagu badbaadin karaa annagu marka taladeenna macnihii halkaasaan ku soo koobaynaa su-aashaad i weydiisay wariye ee ah macnihii sidee baa lagu soo celin karaa dhulkan la boobay oo ma arkayse haykaley walba ay sheeganayso oo macnihii 1500 1 kilomitir 2 kilomitir ka timaaday oo macnihii xitaa xilal ku helaysa dhulkeenna ama dhulkan Mayland 7 gobol sidee lagu soo celin karaa haddaad i tiri jawaabtu way sahlan tahay wadciga hadda la jiro jabhada la aasaaso ma arkaysa macnihii ma fududa waagii sagaashameeyadii ma ahan hadda laakiin iyadoo dastuurka federaalka Soomaaliyeed ay ku binan tahay waxaa sahlan in la dhiso ciidan daraawiish ah tuulo kasta iyo degmo kasta iyo makacdag walba waxaan ugu baaqaynaa dadka ma arkaysa reer Mayland 6 gobol ee lagu soo duulay siiba shabeellada hoose waxaan dhihi lahayn candhuuftiina gadaal u liqa haddii war aad maqlaysaan macnihii cadaawa idin dul jooga waxaa loo baahan yahay hadda oo kale jagooyinka inaan la isku dilin hadda oo kale waa xilliga tanaasulka aad loo badiyo hadda oo kale waa xilliga ma arkaysa dulqaadka la badiyo hadda oo kale waa xilliga walaalkaa wax loo ogolaado hadda oo kale waa xilliga wada isku duubnaanshiyaha aad loogu dadaalo waxaanu sheegaynaa oo aan leenahay ogolaada inaad isxukuntaan ogolaada inaad isdhegaysataan ogolaada in ma arkaysa macnihii qof kale oo 1 kilomitir ka yimaadayba wuu idin maamuli lahaa dhaqaaliyan miskixiyan iyo afba macnihii wuuna ku dilayaa wuuna ku dhacayaa marka kaas oo ku baabi'inayaba war waad ka dhegaysan lahayde walaalkaagii kula dhashay
war marka haddii ay ma arkayse xukunto markadeeda oo idinku aad is xukuntaan afgooy hadday iyadu is xukunto haddii baraawe iyadu is xukunto haddii ma arkayse walaweyn iyada is xukunto awdheegle hadday iyadu is xukunto haddii sablaale iyada is xukunto hadday qoryoole iyada is xukunto maxaa kaa xumaanaya walaalkaa ha ku xukumo ogolow joojiya waxyaabahan qaar macnihii dhexdiinni waa laga faa'iidaysanaya boorsooyin lacaga ayaa laydinla dul taaganya laydinku farraqinaya dad aan dhulka u dhalan baa boorsooyin dhiibaya si ay wax uga helaan marka waxaan leenahay dhulka waddadaasaa lagu soo celin karaa talada aan bixinaynana waxaan rajaynayaa in ay qaadan doonaan qolyaha meesha fadhiya marka aad baad u mahadsan tahay weriye idam alle fardowsa biyagala عليه رهنا وكردنا يوخد عدنا قدر لو عادي عنا جيكي لتشوقي نقو قيانا يسوقوني يوني شحيل كنو ندني يستادك عدكي عدنا قدر لو عادي عنا جيكي لتشوقي نقو قيانا يسوقوني يوني شحيل كنو ندني يستادك عدكي
isugooniyowne jacaylkeenu gunudne geestaada ka adkay adna gidir loo aadee annageehee la jooge inagoogiyaana isugooniyowne jacaylkeenu gunudne geestaada ka adkay inagoogiyaana isugooniyowne jacaylkeenu